madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka halkaasi oo si weyn uga furmayo shirka Brussels kaasi oo danaha Soomaaliya looga hadlayo. shirka waxaa goobjoog ka noqonaya xubno ka socda qaramada midoobay, midowga Afrika, IGAD, midowga Yurub iyo wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya. madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdigu hogaaminaya ee gaara magaalada Brussels ee dalka Belgiumka halkaasi waxaa ku wehelinaya safarka mas'uuliyiin kala duwan oo qaarkood ka socdaan maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya. shirkaasi ayaa muhiim ah waxaana looga hadli doonaa arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya iyo waliba sidoo kale arrimaha la dagaalanka waxa lagu yeeray argagixisada. madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo wafdigan uu hogaaminayo ee gaaray dalka Belgiumka gaar ahaan magaalada Brussels ayaa lagu wadaa marka si toos ah u furmo shirkaasi inay arrimo dhowr ah kala hadlaan qaybaha kala duwan madaxda imaanaya shirkaasi. qaar kamid ah wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya ee shirka Brussels ka soo qayb galaya ayaa Soomaaliya waxay kala hadli doonaan sidii loo horumarin lahaa dhanka amniga iyo dhaqaalaha dalka Soomaaliya. madaxda maamul goboleedyada qaarkood ayaa ayana ka hadli doona dhibaatooyinka haysta dhanka maamul goboleedyada. waxaa lagu wadaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya wafdigiisa in si toos ah ay uga qayb galaan shirka Brussels oo shir aad u ballaaran kaasi oo aad diiradda loogu saarayo xaaladda hoose iminka ay ku sugan tahay dalka Soomaaliya. Cabdi Casriili, Somali Cable.